5, 4, 3, 2, 1. lanti wacan wanaagsan dhammaan asxaabta la xiriidha aayaha TV magacaygu waa Maxamed Daawud Cumar oo ku magac dheer Maxamed Yumbi ku soo dhawaada falaqeynta ciyaaraha horyaalada ugu xiisaha badan haddii ay naqan lahayd horyaalka Premier League iyo sidoo kale horyaalka Serie A da dalka Talyaaniga oo la ciyaaray kulankiisii labaad. shalayto ayaa waxaa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan oo horyaalka Premier League iyo Serie A da ah, balse maanta ayaa iyaduna waxaa jirta ciyaar aad u xiiso badan oo fooda ay isdari doonaan kooxaha Arsenal iyo Tottenham. ciyaartani ayaa waxaa lagu macneeyaa in ay tahay North London Derby. labadani kooxood oo ka dhisan magaalada London ee caasimadda dalka Britain ayaa ayagu madax isla geli doona. haddaba Arsenal iyo Tottenham ayaa labadaba rajeynaya in ay dib ugu soo laabtaan guuldarooyinkii ugu dambeeyay ee soo gaadhay labada kooxood. kooxda Arsenal waxaa ka soo badisay kooxda Liverpool oo waxay kaga soo adkaatay 3-1, halka kooxda Tottenhamna ay ka badisay kooxda Newcastle United. haddaba tartankani oo Premier League ayaa waxaa la ciyaarayaa maanta Axada 1 Sebtembar 2019. saacadda ay bilaabmi doonto ciyaartani waa 6:30 daqiiqo xilliga geeska Afrika. garsooraha waa ninka lagu magacaabo Martin. garoonka ay ka dhici doontana waa Emirates Stadium. haddaba labada macallin ee Unai Emery iyo sidoo kale macallin Pochettino ayaa ah laba macallin oo khibrad u leh, haba ugu sii badnaatay macallin Pochettino oo in badan horyaalka Premier League hogaaminaya kooxda Tottenham. macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Unai Emery ayaa sheegay in Mesut Ozil uu diyaar u yahay markiisii ugu horeysay xilli ciyaareedkan, waxaana suuragal ah inuu ka soo bilowdo kulanka qeybaha hore. haddaba Hector Bellerin iyo sidoo kale ninkii kale lagu magacaabo Kieran ayaa iyaguna dib ugu soo laaban doona tababarka bartamaha bishan Sebtembar. sidoo kalena iyaguna waxay ka mid yihiin ciyaaryahanada lafdhabarka u ah kooxda Arsenal ee ka maqan. haddii aan fiirino dhanka kale, kooxda Tottenham macallinkeeda Pochettino ayaa filaya in uu shaxdiisa dib uusan ugu soo celinin weli ciyaaryahanka halyeyga ah ee Dele Alli, kaa oo qaba dhaawac dhanka muruqa ah balse tababarka uu dib ugu soo laabtay. sidoo kale ciyaaryahanada dhaawaca kooxda Tottenham kaga maqan ayaa waxaa ka mid ah Kyle Walker-Peters iyo sidoo kale waxaa kaloo ka maqan ciyaaryahanka lagu magacaabo Tanguy Ndombele oo ah ciyaaryahan isaguna qadka dhexe u maamula, iyo sidoo kale ciyaaryahanka dhawaan ay la soo wareegeen Ryan Sessegnon ayaa isna ka mid ah ciyaaryahanada ka maqan, iyo rugcadaagii Deer ayaa isna ka maqan, waxauna qabaa dhaawac dhanka sinta ah, welina lama shaacinin xilliga uu garoomada ku soo laaban doono. haddii aan fiirino guuldarooyinka labadani kooxood ay kala gaareen, Arsenal ayaa 10kii kulan ee ugu dambeysay Premier League ay la ciyaarto kooxda Tottenham waxa ay guul ka gaartay oo kaliya 2 kulan. 5 kulan barbara ayay la gashay, 3 kulanna waa laga adkaado Arsenal afka ayaa ciida loo daray. waxaana sidoo kale kooxda Tottenham iyaduna ugu yaraan 26kii kulan ay la ciyaartay ee Premier League kooxda Arsenal waxay garoonka Emirates kala soo kulantay kooxda Tottenham 1 gool, 10 barbara ah iyo 15 guul darro. kulankaasi Emirates ay ku soo badisay ayaa waxay ku soo dhamaatay ciyaartaasi 3 bishii November sanadkii 2010 ayay ahayd xilligaasi oo ay ka soo laabteen 2 gool oo ay ku hormartay kooxda Arsenal. 5 ka mid ahaa 14kii gool ee Premier League la isaga dhaliyay kulan dhex maray labadani kooxood Tottenham iyo Arsenal ayaa ahaa rigoorayaal, waxayna ka mid yihiin kooxaha guulashoodu ay inta badan labadaas kooxood ay ku kala adkaadaan rigoorayaal. waxaana sidaa oo kale hore u sameysay kooxaha Everton iyo sidoo kale kooxda Newcastle United, iyagoona guulahooda ay ka mid yihiin 18 rigoore in ay isaga badiyaan. Harry Kane ayaa ka mid ah ciyaaryahanada goolasha shabaqa Arsenal soo taabtay, waxa uu ka dhaliyay 9 gool xilli horyaalka Premier League kaga hor yimid kooxda Arsenal, halka ciyaaryahan Wayne Rooney oo ka tirsanaa kooxaha Everton iyo sidoo kale Manchester United 12 gool uu ka dhaliyay kooxda Arsenal. ciyaaryahankii hore rugcadaagii kooxda Liverpool Robbie Fowler ayaa 10 gool shabaqa ka soo taabsiiyay kooxda Gunners ciyaaraha ka midka ah Premier League. ciyaaryahankii kale ee reer Denmark Christian Eriksen ayaa asna waxa uu ku jiraa ciyaaryahanada isha lala raacayo, waxauna u dhow yahay in uu noqdo ciyaaryahankii 5aad ee 50 gool ka dhaliya Premier League.
kooxda Tottenham ayuu ka tirsan yahay waxaase u harsan oo kaliya hal gool in uu shabaqa soo taabto waxaana naqanayaa ciyaaryahankii shanaad ee 50 gool ka dhaliyay horyaalka Premier League si kastaba ha ahaatee weligii gool ma uusan ka dhalinin kooxda Arsenal 11 kulan oo ka hor yimid mana jirto koox kulamadaasi oo ka hor yimid uusan gool ka dhalinin balse nasiibkiisa weli maysan saacidin in kooxda Arsenal uu gool ka dhaliyo ciyaaryahan Erikson sidoo kale maalintii shalayta ahayd waxaa goolkiisii kontonaad dhaliyay ciyaaryahan Firmino ka oo ka tirsan kooxda Liverpool waxa uu naqanayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dalka Brazil ee horyaalka Premier League ee dalka England ka dhaliya 50 gool shaxda labadani kooxood ay ku soo galayso ayaa waxaad moodaa in ay isaga siman yihiin waxay ku soo galayaan marka la eego 4-2-3-1 ayay ku soo galayaan sidoo kalena kooxda Arsenal iyaguna waa 4-2-3-1 oo waxa uu yahay line-up-kooda shaxdooda mid ay ka wada siman yihiin marka la fiiriyana shaxdaani waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay shax dhaxda lagu xoojinayo oo mararka qaarna lagu tilmaamo 5 dhaxa iyo 4 gadaala iyo 1 weerar in ay dheelayaan labadani kooxood haddaba halka ay ku dambayso labadani kooxood kulankooda waxaan ku falanqayn doonaa kulamada dambe haddii lee raalli ka noqdo 31kii oo maalintii shalata ahayd bisha Agost waxaa wada ciyaaray kooxaha Southampton Manchester United ayaa u soo martisay 1-1 ay iskula garab dhaceen kooxda kale ee Chelsea iyo Sheffield United 2-2 ay isla garab dhaceen kooxda kale ee Crystal Palace 1-0 waxay kaga adkaatay Aston Villa Leicester City 3-1 waxay ku garaacday kooxda Bournemouth halka kooxda Manchester City 4-0 ay kula durdurisay kooxda Brighton Hove Albion sidoo kale Newcastle United iyo Watford 1-1 ay isla dhaafi waayeen West Ham United 2-0 waxay ku maqoonaysay kooxda Norwich City halka kooxda Burnley gurigeeda looga adkaaday oo 3-0 ay kaga adkaatay kooxda hoggaanka haysa ee Liverpool horyaalkani Premier League waxaa la ciyaarayaa weegiisii ama wareegiisii afraad waxaa kaloo maanta ciyaaraha xiisaha badan ee dhawaan la ciyaari doona kamid ah kooxda Everton iyo kooxda Wolverhampton Premier League 4 kulan oo la ciyaaray waxaa hogaaminaysa Liverpool oo leh 12 kooxda Manchester City oo kaalinta labaad ku jirto 10 ay leedahay Leicester City 8 ay leedahay Crystal Palace 7 West Ham United 7 ay leedahay kooxda Arsenal ayaa waxay ku jirtaa kaalinta lixaad ciyaar ayaa u harsan 6 dhibic ay leedahay Manchester United waxay sii cagacageynaysaa kaalinta 7 waxay leedahay 5 dhibcood horyaalka kale ee mashallayga ah ee aadka loo jecel yahay khaasatan dalka Soomaaliya ee Serie A dalka Talyaaniga ayaa shalayto waxaa wada ciyaaray kooxaha Bologna iyo Spal 1-0 Bologna ayaa ku adkaatay Milan 1-0 dirqiya oo ciyaaryahanka reer Turki uu dhaliyay waxay kaga adkaatay kooxda Brescia Juventus 4-3 oo alla iyo nasiibana waxay kaga badisay kooxda Napoli goolka guusha looga qaaday waxa iska dhaliyay ciyaaryahan Koulibaly oo ah ciyaaryahan dhanka difaaca Senegalna u dhashay waxayna warbaahinada caalamka ay qorayeen in ay ahayd daqiiqadii ugu xumaa oo ay kooxda Napoli taariikhdeedana ka mid noqon doonto iyadoo 3 gool oo looga hormaray ay isaga soo gudeen Juventusna shabaqa loogu shubay sidoo kale difaaca reer Holland ee daayarka ay qaaligan ay ka soo bixiyeen Matthijs de Ligt ayaa asna shalayto maalin wanaagsan aysan u waheenin kadib markii 3 gool laga dhaliyay koox isagu uu difaacayay kulamada kale ee la ciyaari doona waxa ugu xiisaha badan Lazio iyo Roma ayaa isku biratumanaya Atlanta iyo Torino Cagliari iyo kooxda Inter Genoa iyo Fiorentina Lecce iyo Verona Sassuolo iyo Sampdoria iyaguna way is arki doonaan halka Udinese iyo kooxda Parma ay isku dhiman yihiin wararka kale ugu xiisaha badan Sporting waxa kamid ah ciyaaryahan Neymar ayaa shaaciyay in uusan meel kaga socnin kooxda Paris Saint-Germain iyadoo ay u carab laalaadinaysay kooxdiisii hore ee Barcelona iyo kooxda kale ee Real Madrid sidoo kale ciyaaryahan Icardi ayaa laga yaabaa suuq inuu ku xirmo iyadoo maalinta Isniinta suuq uu xirmayo waxaana imika uu ku sugan yahay kooxda Inter Milan iyadoo kooxda Inter Milan ay sheegtay ilaa bisha January in aysan kubad u taabsiin doonin ciyaaryahankaasina waxa uu ka gudbiyay dacwad ka dhana kooxda Inter Milan waxa uu sheegay in uu doonayo kooxda in tababar la qaato una kamid ahaado ciyaaryahanada marka kooxda Inter Milan maadaama suuqa kala iibsiga ay u egtahay in uu ku xirmo ciyaaryahan Mauro Icardi sidoo kale barta Facebook aan ku leeyahay ayaan dhaxdigay taageerayaasha asxaabteyda ah ee kubadda cagta xiiseeya in ay ka soo jawaab celiyaan kulankaasi natiijada uu ku dhamaan karo inta iminka aan ka gaaro ayaan soo qabanayaa Axmed Tarabi waxa uu yiri Arsenal way ka adeeganaysaa dariskeeda
3-1 waxaa ku badinaysa kooxda Arsenal. ninka la yiraahdo Nuux waxa uu ku soo taageeray dad fara badan kulli waxaan u maleynayaa dad Arsenal taageero dariska xaqooda qaadanaynaan galabta muhiim nuur qof ay u qoran tahay ayaa sidaasi soo qoray waxaan u eg tahay in marka Arsenal qofkaasi uu la jiro Akha Boss Ali yar ay ugu qoran tahayna waxa uu yiri waxay ku dhamaanaysaa ciyaartaasi barbaro Akha aad baan u garanayaa waan ku salaamayaa waa taageero kooxda Chelsea sidoo kale Sulaiman Daoud oo ah taageero weyn kooxda Arsenal waxa uu yiri 2-1 waxa ku adkaanaysa kooxda Arsenal Amir qof ay ugu qoran tahay Amir Alhaji 1-1 ay ku dhamaanaysaa ayuu yiri Yaxye Social oo ah taageero weyn kooxda Arsenal waxa uu yiri 3-1 Arsenal ayaa ku badi doonta Hamza Umar waxa uu yiri Arsenal Viva Arsenal ayaa badi doonta ayaan u qaadanay muhiim nuurna mar kale waxa uu soo qoray 3-1 waxa ku badi doonta kooxda Arsenal Viva Gunners sidoo kale Abdul Aziz Ahmed Bulhan waxa uu yiri Tottenham ayaa ku badi doonta 2-0 waxa qaybtan ugu dambaysa inta badan waxaan ku soo qaadanaa taageerayaasha kubadda cagta xiiseysa ee sidoo kale barta Facebook inagula soo xiriira Moha Abdul ayaa kamid ah asxaabta maanta nasiibka u yeeshay inay ka qayb qaataan Moha markii ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa Aayaha TV marka xiga ka waran afartii kulan ee kooxaha Premier League ay soo ciyaareen iyo adigu kooxda aad ka taageerto kooxaha Premier League وأكو سلامي مركورة أديو شغالة آيها TV مستر يومبي وأنا وهاي سجال صعدان أنا وحان تاير ليفربول فوتبول كلاب سيزون كان وحاب لاودي 1920 بريمير ليج كوحا حد بسيب وسوق العديدين وإسكو صوت دياريين إن ماركتي أوترتمان سنة عيارات عصب أي بلاودي إيو كوبكا markaan ka hadalno kooxaha awoodda iyo suuqa siday u galeen marka la fiiriyo Liverpool iyo Man City waa labada koox ee maaragtay maanta horyaalku bilaaw ah la dhihi karo waa labada koox ee tartanka ka dhaxeeyo marka kooxaha kale loo fiiriyo awoodooda tusaale Arsenal waxay sameysatay summer maaragtay business fiican sameysatay si ay maaragtay ugu tartamto horyaalka haddana waxaad moodaa in maaragtay xoogaa yiri habacsanaan ay ka muuqato habdhaqanka macalinka iyo maaragtay in falsafada ciyaartooyda u kala safi lahay marka hadda fiirino weerarka Arsenal Aubameyang Lacazette iyo Pepe waxaa la dhihi karaa weerarka saddexaad ugu halista badan marka laga soo tago Liverpool iyo Man City Manchester United weli xaaladeeda ma fadhiso wallow ay suuq iibsiga aad u gashay ay ka soo iibsatay baswaaka mid ay ka soo qaateen maaragtay Crystal Palace Harry Maguire 80 million ugu fadhiyo haddana weli xaaladeeda waxaad muddaa inaynan fadhin oo maaragtay kooxaha maaragtay iska soo socoto maaragtay 2 games balse 2 games waxay noqotay draw weli waxay ku jirtaa kaalmaha aad ku hooseeyo xaaladeeda qiimeynteeda waxaa waa iyada maaragtay aad bay u liidataa Chelsea sidan la socona Chelsea suuqa galiibsiga uu ka xiran yahay haddana iyadoo taa jirto maaragtay macallin cusub oo qabtay Frank Lampard laacibkooda ugu fiicnaan Eden Hazard oo maaragtay iskaga hayaamay Stamford Bridge aysan soo iibsan karin maaragtay ciyaaraan u dhigma ma umaleeyahay inay helayaan ciyaaraan like Hazard camal ah bad u dhigma ma umaleeyahayo Christian Pulisic soo qaateen laakiin waa hore kabteen laakiin still is young wuxuu u baahan yahay maaragtay horumarin aad iyo aad u ballaaran u baahan yahay laakiin haddaan ka dhaxgalo fiiri haddaan ka dhaxgalo maxaa la yiraahdaa Chelsea ma ku yaro ciyaaryahano oo maaragtay waxay haysataa Abraham oo kala hadda labadii kun ugu dambeysay goolal u dhalinayay marka ayagu gool way dhalinayaan laakiin ma la dhihi karaa difaacooda ayaa liito markaan fiirino goolaliskooda labada game ugu dambeysay waxa goolal u dhalinayay laba daa'ir ah Abramovich iyo Mason Mount inuu yahay jeclahay maaragtay markaad u fiiriso weeryahanada kale kooxaha kale haystaan hadba shartooda iyo sharta kuwan wax isku dhigmo ma ahin
defenderskooda waan la soconaa inuu aad u liito maaragtay alla shalay goal on goal iska dhaliyeen 90 minutes oo bareeja tabartii waxay iska direen David Luiz oo maaragtay xogaa la isdhihi jiray xogaa isdifaacooda maaragtay waa ugu roonay waa ugu khibrad fiicnay Gary Cahill oo kale waa iska sii direen macnaha waqti xadirkan wax wal class player hadii la dhaho maaragtay ciyaarahan ciyaartooyda kale maaragtay maqaamka sare la fuli karo Nicola Conte ki jiro isagana maaragtay waa midfielder goal ma ka filanaysa maaragtay maantana uu quraac uu ku dadaalay laakiin daliski iyo maaragtay difaacidiya aad maaragtay baasha ee uga dhimatay nimanka la yiraahdo Chelsea xaaladooda aad u hooseysa oo ma leeyahay markii inay iman doonaan top 4 sanadkan waayahay moha ka waran kulanka maanta derby London oo Tottenham iyo Arsenal hadan kusoo gabagabeen yumbio kulanka maanta aad ugu adag yahay London derby waaye markii laga soo tago waxa filayaa inay isla yihiin North derby Tottenham iyo Arsenal ciyaar la saadaalin karo ma ahin walow maaragtay sanadii u dambeeyay Arsenal iyo Tottenham hadii la fiiriyo maaragtay wax xogaa Arsenal maaragtay firfircooneed iyadoo maaragtay hab iska aado koox liidato laakiin markii Tottenham loo fiiriyo waa team maaragtay ka dagaalamaya ama u dagaalamaya qadiyad macnaha London u tartamayso kulanka maanta hadii Arsenal Unai Emery oo iska saxo maaragtay dhanka iyo line-upka shaqo kuma jiro Tottenham in la kala tiraayo laakiin hadii ay Emery maaragtay xaaladda sidoo Liverpool ku soo galay iyo waxyaabo la mid iyo kulamo jilicsan haduu ku yimaado Pochettino naqana aad buu isku adkeenayaa sida daraadii markii aniga ahaan markaan fiiriyo ciyaarta maanta waxaan ku saadaalnaa waxaan taageerayaa maanta Tottenham aniga Arsenal Tottenham ma taar laakiin waxaan calanka u siidaa Tottenham maanta hadii aan isiraado Tottenham iyo Arsenal ciyaartooda wax ku dhamaan doontaa 3-1 oo ku shaquraaci doonto nadiga Tottenham Hotspur marka Arsenal reeshada waxaan leeyahay wax biidin ma hay karaal naqda waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Moha Abdul ayuu ahaa ka qayb qaataha falaqeynta insha Allah isbuucida dambana waxaan ku soo qaadan doonaa asxaabta kale raayigooda inagoo waliba bilaabi doona in maaragtay dood iyo falanqeyn aan iska horkeeni doono hadda marka labadii kooxood ee ciyaaraysa taageerayaashooda intaadii daba ku kulmi doono waa saaxiibkeen Maxamed Yumbi oo kaga tagayo sida iyo nabadgelyo